munaasabadan oo si ballaaran loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweynayay siyaasiyiinta isbahaysiga ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo dhawaan sheegay inay ku biireen xisbiga mucaaradka ee waddan ayaa maanta lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka ee waddani siyaasiyiinta isbahaysiga ee xisbiga kulmiye Salaadiin Cuqaal xildhibaan ka tirsan labada aqal ee guurtida iyo wakiilada iyo kumanaan taageerayaal oo kamid ah taageerayaasha xisbiga isaga kaliyimid qaar kamid ah gobolada dalka iyo dalka dibadiisa ugu horreyn waxa munaasabadaasi ka hadlay qaar kamid ah hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka ee waddani oo dhamaantoodba tilmaamay inay ku faraxsan yihiin xuduudda taageero ay maanta ku soo kordhiyeen xisbigaasi garabka isbahaysiga ee xisbiga kulmiye يا أبو فرحسن هاي وحجعل يقرأنا نقول ويو إذا ذاكي حسي عجعني وحنا هاي سود وانا لا يدي كمرا حما وحنا هاي رجل سود وانا يا قالوا يسود وانا سود وانا معنا بدل ما سمعوا إن قرص الحلالة وقرص الوجود لكن واحد معنا بدل سمايا إن واحد للدنيا يو لا يسبق كرتون ويثبت الكالدنيا والنظام مثل ودلية والوردية وحاولنا هاي أمين يحس إنه ما يقدر يحسين وحاولنا يقدر يقول الشيء سلامة شكور أمين يحس إنه بالنسبة للمليون وشينا مليون مليون سكر الله تبارك وتعالى وهسول ويلنا رجي كلياها الإصلاحي الدولة دقيقة يقولوا قاعدين إذا نقص حسنا هاي النص النقدي يكنا ما سود ويليا أبى سود ويليا sidoo kale iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay qaar kamid ah Salaadiin iyo Cuqaal ka tirsan madax dhaqameedka Soomaaliland oo iyaguna sheegay inay ku faraxsan yihiin garabka isbahaysiga ee xisbiga kulmiye la midoobaan xisbiga mucaaradka ee waddani dhinaca kale iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay siyaasiyiinta isbahaysiga ee xisbiga kulmiye ee ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee waddani oo ay horkacayeen wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis iyo wasiirka hore madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaan leeyahay in la isweydiiyo maxaa ku timaadeen waddani maxaa u timaadeen waxaan u nimi waddan waxaan uga tagin kulmiye waa la sheegay marana badanna waa u sharaxan waxaan isoo waddani u nimi inaanu ku badbaadino qaranka oo ka badbaadino hoggaan xumo inaanu ka badbaadino waxaan doonayna dadka Soomaaliya inaanu ka saaro oo hoggaansanka ashqaasta waxaanu rabnaa inay hoggaansanaan sharciga dadka Soomaaliland waxaanu doonaynaa inaan ka saaro qodobnaanta qabyaaladda waxaanu doonaynaa dadka Soomaaliland inaanu ka saaro isbuufaysiga danaystayaasha waxaanu rabnaa isgaransiga aqoonta iyo aragtida siyaasadeed ee ku dhisan daryeelka bulsho walaala ah oo isku qiimeeya wanaagga waxaanu ku raacnay xisbiga waddani waa mabaadii aanu isla qorano maanta halkaa ku saxeexnay oo gebi ahaantiin ka tihiin gobjoog waxaanu hawshaa u gallay inay xisbiga waddani ku dhaqmaan fikrad cusub aanu u keenno hoggaankeeda wax ka maamulno tala la wada leeyahay oo loo dhan yahay oo tii hore ka gedisada jujuubka ahayd aanu maanta ku soo biiro waxaan leeyahay shacbiga reer Soomaaliland maanta guul baa idin dhalatay waxaan leeyahay shacbiga reer Soomaaliland maanta waxaanu halkan u nimid inaanu dadka tusno iyo dalka in aanay qabyaaladii shaqaynayn geesta kale isaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa si qalbi furan oo laab furan ugu soo dhaweynaya ragga halka ku sawiran arkaysi iyo hablaha iyo inta ka maqan ee sawirradooda ku oolin ee isbahaysiga
ee maanta xuduudoodii halka ku soo biiriyey waa xisbi maanta aan laga lahayn maamle soo dhawaada gudoomiye Cira ayaa sidoo kale markii ugu horeysay waxa uu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay farqiga u dhaxeeya dood ka dhalatay xilka cusub axsaabta siyaasadda ee dalka loo magacaabay wasiirka hore madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan. waxaan jecelahay in laba eray kala cadeeyo dariiqa dambe marka inta warximo tashiilka laga tago waxaa ku soo korinay muuqaalka iyo istaraaktarka xisbiyada eray cusub oo la yiraahdo hogaamiye walaalayaal waxaan sheegayaa xisbiyadu inay fadhiid noqdaan maaha xisbiyadu waxay korayaan istaraaktarkuna wuxuu u baahnaanayaa in wax laga bedelo sidaa daraaddeed xilka guddoomiyuhu waa sidiisii awoodihiisu waa sidiisii laakiin baahiyaha xisbigu guddoomiye keliya kuma koobna sidaa daraaddeed waxaa la soo jeediyey in la sameeyo hogaamiye loola dhiibo xilal muhiima oo lagu qeexi doono xeerka xisbiga. intaasi kadibna waxa munaasabadaasi halkaasi labada dhinac ee garabka isbahaysiga ku soo biiray xisbiga wadani iyo mas'uuliyiinta xisbiga wadani oo kala metelayeen gudoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo Maxamed Biixi Yoonis oo isaguna horkaciyay isbahaysiga ku biiray xisbigaasi halkaasi ku kala saxadeen heshiis ka kooban 10 qodob ay ku wada heshiiyeen labada dhinac.